sheekadeena maanta inta ayay ka bilaabanaysaa. Libaaxan aad ayuu u xanuunsaday. Waxaa dhacday inuu godkiisa oo ka bixi waayo oo u waartagi waayo. Mar walba godkiisa ayuu isaga dhex warwareegaa maadaama uusan ugaar aasan karin oo wax soo dilan karin. Sidaa waxay ahaataba maalinta dambe wuxuu ka cabsaday libaaxa inuu u dhinto qaajo. Markaasuu wuxuu ku fikiray inuu u waco dabaco. Dabacadii ayaa u timid. Markay u timid way wada hadleen. Dabacadii waxay dhahday boqorka keento saan maxaa kuu galay. Libaaxii wuxuu dhahay aniga aad ayaan u gaajooday maadaama aan jiranahay aanan banaanka aasan karin oo wax soo dilan karin. Markaase waxay dhahday ha cabsanin, anaa waxaa cunto ku keenay. Markaasu wuxuu dhahay boqorka keenta. Libaaxa wuxuu dhahay oo kugu ogaa aqliyaasay maxaa ii keenay. Dabacadii waxay ku tiri dameer funow ayaa kuu keenaa maadaama uu hilibkiisa oo badan yahay oo maalmo badan aa cuni kartaa darteed dameer funow ayaa kuu keenaa. Markaasu wuxuu dhahay waa fiicantahay, saas ii sameey, dameer funow ii keen. Sidaas ayay ku heshiiyeen. Markaasi sidii ayuu kusoo baxday dabacadii. Dabacadii waxay soo socotaaba waxay u imaaday dameer funowgii. Dameer funowgii ayay waxay ku tiri dameer funow boqorka keenta waa xanuunsan yahay ma ogtahay. Maadaama uu xanuunsan yahay wuxuu ka cabsaday inuu dhinto. Intuusan dhimanin ka hor wuxuu rabaa inuu boqortinimada adi uu kugu wareejiyo maadaama aad u qurux badan tahay. midabkaaga ayuu ka helay, sidaa darteedna waxaa ku heshay midabkaada quruxda badan boqortinimo. dameer funowgii aad ayuu u farxay. Markaasuu soo baxay oo wuxuu u imaaday libaaxii. Isla markiiba oo dameer funowgii godka saas oo usoo galay libaaxii, dameer funowgii ayuu kusoo booday oo dhegta ayuu ka qabsaday. Isla markii dhegta qaniinjo ugu qabanayba wuu iska fujiyey maadaama uu libaaxa tabar saas oosan lahayn uu jiran yahay. dameer funowgii saas ayuu kusoo faktay. Maadaama uu soo faktay, maalinta kale ku xigtay duurkiisu iska joogo waxaa dabacadii ayaa aragtay. Markaasi waxay ku tiri dameer funow maxaa meeshan aa joogtid, boqoraa lagaa dhigi rabay. Markaasu wuxuu yiri libaaxii way cuni rabay. war ma ogid hataa markaasaan godka u galay dhegta ayuu qaniinjigii qabsaday. Markaasi waxay ku tiri ma ku cuni rabine taajka boqorka inuu madaxa kuu suro rabaa. Dhagaan dheer adoo leh taajka boqorka ma lagu gelin karo. Doqonaatee ku laabo boqortinimadana ha isdhaafsiinin. Isla markiiba dameer funowgii wuxuu usoo laabtay libaaxii. dameer funow markaan wuxuu is dhahay gadaal u jeeso dhagaha ay goosanin. dameer funowgii wuxuu ka cabsanayay in dhagaha laga goosto boqortinimadana uu rabay. markaasuu libaaxii kusoo booday haddana wuu soo faktay. markuu soo faktay maalinta kale ku xigtay haddana dabacadii ay is arkeen. markaasuu dameer funowgii wuxuu ku yiri dabacadii aniga mar walba godka gala libaaxa uu igu soo boodoyaa inuu cunaa ka cabsanaa. markaasuu dabacadii waxay ku tiri doqonaa tahay maku cuni rabee libaaxan u laabo boqor noqo. sidii ayuu ku qancay dameer funowgii. haddii mar kale saddexaad ayuu usoo laabtay. markaan kale markuu saan usoo galay libaaxii toos ayuu ugu booday oo dhakab ayuu siistay ayaa lagu cunay dameer funowgii. waxay tahay mar walbo hal meel leh ha fiirinine maskaxda inaa ka shaqaysiisid waaye. dameer funowgaa 2 mar ayuu faktay. maskaxdiis muusan ka fikirin, keliya waxaa u caddeed sidoo boqorku naqan lahaay. intuu boqortinimo raadinayeen asigii ayaa naftiisa waayay. intaas sheekada xigta ku kulmi doona. nabadeey.